kulanti wanaagsan mar kale iyo ku kiimad xabsa kusoo dhawaada meel kasta oo naga daawanaysaan ayaamaha waxaan sameynaynay labadii cajadood ugu dambeysay sidii maaragtay aan u exercise gareyn lahayn jaakadaha waa la dhigayaa qabowgii waa dhamaaday hawadii waa fiicnaatay marka sidii maaragtay aan xoogaa yar ama haddii cayil dadka qaar saaran yahay ay isaga ridi lahaayeen ama sidii aan energy fiican ku heli lahayn sidii aan anagoo dhan nafteena guud ahaan aan uga shaqayn lahayn maasha allah idinkan si fiican ay usoo dhaweyseen commentiska iyo maaragta hadallada naxariista walaaltinimada aada idinka mahadcelinaya jazaakum allahu khayr maantana waxaan rabaa inaan idin tuso insha allah cabitaan aan jeclahay cabitaano aan jeclahay 3 nooc waaye subaxii markaa soo kacdo midka ugu horeeya biyo kulul lagu qasayaa waa idin tusi doonaa insha allah step by step haddii maaragtay aad tahay qof dheefshiidka caloosha waxyaabahaas dib ku qabo ama maaragtay calool istaag waxyaabahaas qabo cabitaankan biyaha kulul lagu qasaya aad ku anfacaya midka ku xiga waxaa waaye mid meeshaan subaxii markaa cabitaankaas cabo waa la quraacdaa xoogaa kadib saacad kadib waa quraacanaynaa markaan quraacano quraac fiican fuula la cunaa right oo ama mashaarid aan soo geliyay ama ukun iyo toast ukuntaan jeclahay subaxa aniga ukunta vitamin D na way leedahay way ku fiican tahay ama mashaari aad u fiican aan soo geliyay labadaas iyo xaajo rooti ah cunaa ama canjeeradii fiicneed oo mashaarida laga sameynayo waxyaabahaas markaan cuno qadadii waaba dharagsanahay marka qadada waxaan sameeyaa cabitaankan aan idin tusi doono oo lafaha ku adkeynayo oo yoogarka iyo caanaha iyo laga sameeyay waxyaabo kaleeto idin tusi doono aan cunaa qadada waa 6 saac ilaa 7 saac okay markaas fuulaan baa ilaa iyo laga gaaro 9 saac haddana markii maaragta aad isdhahdo korontada kaa dimi rabto waa nuxuusi rabtaa cabitaankaana u baahan tahay energy fiican uu ku siinaya meelahan annaga aan joogno haddaa qurbaha joogto kaleeto badanaa qado waqti badan looma hayo lama kariyo subaxiyaa laga yaabaa si fiican in loo quraacdo habeenkii marka galabtii marka ilmaha markay isku yimaadaan reerkoo dhan isku yimaadaan 4 ilaa 5 inta u dhaxayso waqtigaasaa cashada maaragta maasha allah casho fiican oo reerkoo dhan ilmihii iskuul ka yimaadeen qofkii shaqo jira ka yimaaday reerkoo dhan miiska intay fadhiistaan maalintooda ay iska wareysan karaan alla samaystaa soomaa kolba annaga saas way gurigeena hal maraan wax kariyaa hal mar bis habeenkii marka la isku yimaado oo maaragtay habeenkii waxaan ka wadaa 4 ilaa 5 inta u dhaxayso 4 guriga la imaadaa 5 markii la gaaro 5 o'clock galabtii waa la wada casheeyaa marka intaas ka horeysa haddaa quraacati waxaa u baahan tahay wax energy ku siiyo shaqada waa badan tahay hooyooyinka isbashal shaqada aad ugu badan tahay cabitaanadan marka insha allah ka faa'iidaysta haddii aad wax ridayso marka haddii aad tahay qof raba inuu miisaan iska rido waxyaabahan oo kale markaa badsato oo calooshaada buuxdaa ama samaha boos badan kama banaano oo baasta iyo bariis aad maaragtay ka buuxiso waxaad tahay qof buuxaad tahay waaba buuxdaaba haddii aad tahay qof marka aan rabin inuu iscaateeyo energy u baahan tahay vitamins u baahan tahay marka insha allah cabitaankan ka wardoon waa mahadsantihiin wixii taliya tusaalaha hoos ku reeba share gareeya si walaalaha kaleetan ay u arkaan cajalada haddaadan subscribe garee si aa u aragto waxyaabaha cusub oo soo socda snapchatkayga inay soo weydiisin uma baahnidin snapchatkayga facebooka instagramka kulli cajalada meesha ugu dambeysa ay ku qoran tahay insha allah ka qorta thank you asxaabta sharafta waxaan ku bilaabanaynaa marka quraacdeeni oo maaragtay celery stick iyo kabsar caleenta midka uga baarsig la dhaho sinjibiil aan isku shiidanaynaa biyo kulul ku shiidaa marka aad ay muhiim u tahay subaxii marka cleansing fiican ay ku tahay caloosha dhan ay ku nadiifinaysaa dheefshiidka caloosha u fiican tahay saan hore idinku sheegay haddaad doontid iska miir laakiin aniga ma miiraayo marka subaxii insha allah biyo kulul ku bilowda maadaama maaragtay celerygan iyo barsligan ay vitamins badan leeyihiin korkaagana ay u fiican yihiin lagu xanuunka iyo inflammation waxyaabahaas dhan hadday jiraan ay kaa caawinaysaa marka taas waa quraacdeennii maasha allah it's really good haddii aad subaxii biyo kulul ku bilaabato haddana waxaan u gudagalaynaa qadadii oo ah kiwigaas aa ujeedaan af soomaaliya ma kulihiin oo soomaaliya ma oolin laakiin haddii aad meelahan joogto maaragta waa heli kartaa kiwigaas oo asagana vitamin C fiican leh malab yar ku darso haddaad macaanka jeceshahay haddii kaleeto uma baahnid waa qada fiican oo culus xabad moosa oo maaragtay mooska dee soomaalida loomaba tilmaamaba waan naqaanaa sida loo cuno marka insha allah marmar inaad shiiditaan isku daya iyo garoor aan ku darayaa waxaas fadhiyo waa garoor iyo caanaha biyaha ah kii aa haysato haddaad doonto biyaha ku qasan kartaa intaas marka maasha allah cabitaan yaroo culus haddaad doonto marka adkee haddaad doontidna sidaasoo kale u jilcin kartaa laakiin waxaan ku leeyahay cabitaan qada maasha allah uu kuu noqonayaa oo maaragtay baaquliga baastada ahaa aadan u xiisin marka kaas markaad isku qaboojiso 6 saac 7 saac markii la gaaro waxaan ku leeyahay dhagaad tahay haddana waxaan sameynaynaa cabitaanka aan ugu magac darnay energy boosterka oo maaragtay markay korontada kaa dami rabto 3 o'clock la gaaro ilmaha iskoolka laga soo qaadayo waxaa u baahan tahay wax maaragtay energy kor u soo qaado hurdada ay ku qaban rabto
liintan iyo karootadan isku daraysaa jab sanjabiil ah aadan waxaan ku leeyahay aa uga helaysaa cabitaankan sanjabiisha maadaama maaragtay haddii korka xanuun iyo barar iyo waxyaabahaas ay ka jiraan ay kaa dejinayso markasta cabitaanadaada ku shiido malab yar ku darso qofka aan siinaya hadda macaan jecel aniga maaragtay malab kuma daro iyo wax sokor waxna horta sokor iskaga ilowba malabka xataa kuma daro laakiin haddaa malab jeceshaha insha allah malab ku darso waxaan ku leeyahay maalintaada dhag waayo haddaa saddexdaas cabitaan isku hesho marka daawasho wanaagsan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheer gareeya safa herbal oil wataasaa qofkii timagoyd isku arkaya ka faa'iidaysto snapchatkayga iyo maaragta meelaha la igala soo xiriiro dhan halkaasay ku qoran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu